war ay muddo dheer naawilayeen dadka ku dhaqan gobolada Awdal iyo Salal ayaa maanta ka soo yeedhay saraakiisha sarsare ee hay'adda horumarinta wadooyinka gobolada Awdal iyo Salal ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano Asarda. madashu waxay ahayd shir jaraa'id oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha hay'adaasi Asarda Professor Xasan Ali Cismaan, gudoomiye ku-xigeenka hay'adaasi Cabdulqaadir Aadan Nuur iyo waliba saraakiil sarsare oo ka tirsan isla hay'adaasi Asarda. gudoomiye Professor Xasan Ali Cismaan oo shirkaasi gudoominayay ayaa waxa uu ku dhawaaqay maalinta ay ku taariikhaysan tahay dhismaha wajiga labaad ee jidka isku xidhi doona Dila iyo Camuud qaybtiisii labaad. marka hore aan salaan iyo hambaliyo iyo bogaadin u gudbiyo oo ka hadlaya magaca Asarda ururka horumarinta wadooyinka Awdal iyo Salal. aan bogaadin salaan u gudbiyo dhammaan dadka ka qayb qaatay wajigii hore mashruuca jidka Dila Boorama iyo dadka imika niyeysan inay ka qayb qaataan wajiga labaad ee jidka Dila Boorama oo qabanqaabadiisa ay socoto. waxaan loo jeclaan lahaa halkan inaan uga gudbiyo fariin مثلا إن طريقي وبلامي دون وجهي سيلابا هدي لهنا قارسيسان قوضنا ويوحوا بالسيد وصعلان بشكوى بصدحات كودي هدي لهنا قارسي وإذا ما تقبل قابضي هو سانكي بروفايل دي وإذا ما ده وحنا بتترجي راينا نوشي بلونه هدي لهنا قارسي وجهي لبا وهذا عم بلامينه وكبلامي دون هالكي مركب الكجوج لسدح كيلومتر هوري وكذب بديه هاي ونكهول بديه هاي ونكلعك بديه هاي قيبتي هوري وجهي هوري هي وجهي كذا ما يبغى لأنه وحكم بيجي هاي ماشي وبورة هاي بورها بدني يكون بيجي الله يسكت إن شاء الله تبر كانوا بيجني لافتن كل حينا ما وكاشين إلهي وحنا جعلنا هاي دمان أنت جعل إنه وحكي جيسته إنه قاعد دقدقة oo hawsha wax ka qabatay maaragtay nala soo joogsadaan runtii maanta hawl badan baan hortaaganahay waan u baahanahay wax tarkiina marka wax jeclaan lahay inaad gacan weyn ka geysataan haddaad tihiin bahda ka soo jeeda goboladan gaar ahaan iyo guud ahaan Soomaaliland ama Soomaaliya waa ilaah wax jeclaan lahay in gacan weyn arrintaas laga geysto laana wasla jaariya waa hawl socoto weey waxa kale oo isaguna shirkaasi jaraa'id ka hadlay Abubakar Shina Dheere oo isaguna kamid ah saraakiisha sarsare ee hay'adaasi Asarda waxa uuna tilmaamay in hawsha taala ay tahay mid aad u ballaadhan. waxaan ku laraynaa maadaama ganacsatadii nahay qolooyinkii dhinacyadii la hayay wadada aan nahay oo maxay doonayno inaanu ka miradhalino horumarka gobolka ama isku xilka Hargeysa iyo Boorama ama isku xilka Jabuuti iyo Boorama inaanu kamarino doono kiiloomitirada ugu horeeyayna aanu hore u samaynay imankana kuwii dambe aanu samaynayno sawsha kuwii ku adkaa ayay noqdeen oo halkii kiiloomitir qiimiya oo halkii kiiloomitir kuwa loogu qiimisa 2 kiiloomitir buu loogu qiimisay laakiinse sidaa uu dhabar adaynayo oo hawladeeyo ayaa nabula u garab taaganahay oo ku raacsanay waxaanu doonaynaa kuwa iyo kuwa ka badan oo dambe inaanu samayno oo annagu isku tashado waxaanu ku tashaynaa nafteeda ku tashaynaa waxaanu ku tashaynaa dadka iyaga qurbaha jooga meel kasta ay joogaanba waanu ku tashaynaa waxaanu anoo ganacsatadii ama ballaaran uga soo celeynaa halkan reer magaranaysa maxay imaaraadka carabta reer London reer Switzerland qolooyinka ay gacmuhu naga soo gaareen waliba ha u badnaadaan gabdhaha ku dhaqan reer London qolooyinka ay gacmuhu naga soo gaareenna waxaanu leedahay dalkaagii iyo dadkaagiiba way ku baahan yihiin ku soo tabaruc waxaad heli karayso xagla laabana xoolo kuma yimaadaane annagu waxa wax loo qabanaya $10 $100 $1,000 ayaa markay isku tagaan kiiloomitir dhisay laakiin saaduu nin kastima $100 la seexdo dee wadaduna way seexan nin lagu seexdo ha seexan bay Soomaalidu ma maale annagu waxba kaysan mayno shirkeegu waan huraynaa xasab baa naga soo daadanaya maalinba noo fikiraya wardeydii kuna soo daadaya oo annaga soo looga daadiyay idinkuna u fikirtaan
oo u soo daalisaan oo wax noola qabataan ayaanu doonaynaa weliba waxaanu la hadlaynaa reer North America qolooyinka Europe Switzerland inta kale oo dhan kuwaasoo dhan baanu la hadlaynaa reer Australia wax weyn oo kilomitir qolooyinka waxaanu hadlanahay qola kastoo kilomitir bay dhisaysaa markaa wadayqada ku dhisaya laakiin waxay dhisayaan ma jirto waanu sugaynaa dib bay u dhigteene maanta inaga baahanay intaas ayaan ku soo gabagabaynaa intii hore waxu soo gaarsiina waxay walaalayaal niman maxayday halkan inaga leedahay waad ku mahadsantii ilaahay inagu daro xasanaadkiina aakhiro iyo kayrkaba وأقول لتابن كرامن هدي بلوغي كوادة شبابها أي كسب بحدا إسلام مركان كقول ستة هاي داسردا فرحدا كلام ماشي كل ما أنا وحاي تايم بيش صد هذا هو فود إنه قصة هايسا وقرشها وقتشرب بلوغ وقتشي لبعده وضدا لكن هو شرط هلا ولي أسرد ما يرى فرين توجد بلدنا وحاي ودراسة وحاي تهدد كنا القربها أو دش دلك قبل كأوضل يا قبل هذا أوضل يسلل دلك جدا يعيد والبوق عنك جيسن كرت شعله إن مالين مال ما كم ده أيارك تقبل كأوضل أو الدوين كيسا وذا الاسمين هدي تاسع صورة كشنا وحهو على إن وجهك الله بعديه وتشيء ذا كدم بيوردنا يكون ما أنتوا نقول عبد العلي يوسف شبكة دورر كله هاي نيوز مقالة برما